saraakiisha ururka 51 guutada sagaalaad gobolka Bakool iyo maamulka degmada Tiyaglow oo muddo 6 sano ku sugan magaalada Xudur ayaa bilaabay in howlgallo ay ku sahansanayaan deegaano ku yaala wadada xiriirisa labada degmo Xudur iyo Tiyaglow ka sameeyay taas oo rajagelisay shacabka degmada Tiyaglow shabaab oo goboladan dowladan ku yaala gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed maxaa dib ku haya iyo sidoo kale shabaab iyo maxaan ku yiraahdaa Daesh oo Puntland ayagana meelo kamid oo yar yar maxaan ku harsan oo ku jira intaba waa loo taagan yahay caawiye maalin kuwaasna ka ogolaan meena in ay buuraha Puntland saarnaadaan kuwaasna ka ogolaan meena in ay dhulka Soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawano la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankan ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaan ku yiraahdaa tacbadaan ilaahay idankiis waa ka imaanayna Soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod waxaad ku guuleysan kartaa shabaab waad ka tagtaa diinta ilaahayna aafisatan uu koolna ahaateen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dal sideedaba cadowga in is hor fadhiisiin oo isku daashin macna male cadowga waa inuu ama ku baxsho ama bixiso adiga gacantaada haddaad meel saan u saarto 5 daqiiqo kadib waa dareemay hal saac hadaa ku haysna ma soo qaadi karto ka warnaan dhowr sano meeshaan fadhi marka aniga sideedaba ma qabo shabaabka difaac in loo galo shabaab sidiisaba in la weeraro waxa laga rabaa shabaab haddaad burbursiin oo aadaya baalka qabatiin oo laga qabto tardo oo jiinka laga sifeeyo oo wax laga qabto oo ceelbuur laga qabto oo dhulka laga qabto shabaab horta waa ka taga خوارجta al-shabaab waxa ay jireen culimo ganacsato aqoon-yahano dhaqaatiir saraakiil askar arday wariyaal caruur haween iyo cid kasta oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxa ay qaraxyo ku baabiyeen ganacsiyo guryo masaajid madrasooyin lagu barto culumta islaamka dugsiyaal quraan ceelal iyo wax kasta oo anfac u leh dalka iyo dadka intaasi in ka badan oo qolxun ay u geysteen diinteena iyo sidoo kale dhaqankeena suuban haddaba maxay tahay sababta ganacsatada Soomaaliyeed ay lacagta u siiyaan cadawga ummadda maxay dadku uga cabsanayaan haddii aan dhinacna lagu dhaafayn ninku dilaya daarahaadana duminaya dollar si ma garba muwaadin xaqeedu waxay tahay muwaadinna ogaato qof kasta oo naga mid ah argagixisada waxa ugu xukuman yahay dil waxa ayna doonayaan inay dadka Soomaaliyeed gumaadaan اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف dadka hawada raaca oo xaqa ka bayra dhamaantood waa khawaarij waxay ku kala duwan yihiin waa magaca waxay ku midaysan yihiin waa seef intay qaataan inay muslimiinta la dhaxgalaan in ummadda laayaan xagee ka soo bilaabeen saxaabadii waxay dileen laba khalif Uthman ibn Affan iyo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxay dileen saxaabadii la xaadiray ghazawaadkii salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxay banaysteen dumarkii oo maxaa la yiraahdaa ay ku xadgudbeen ilmihii bay laayeen bal ilma caloosha ku riday soo rideen oo dileen heerkaas ay gaareen markaas ay saxaabadii la dirreen oo la dagaalameen ilaa iyo inta ay baabi'iyeen
وحوي النبي رواشه صلوات الله وسلامه عليه ووحو يري إذا لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد هدي أن لكل ما والله ينهي Soomaaliyeed ah waa Maxamed Xasan waxaan rabaa marka dagaalada sida loogu jiro sida loo baahnay wax badan ka dhiman sida la og yahay shirintayda inay ka faa'iideystaan nimanka la yiraahdo Galmudug iyo Hirshabelle oo hadda agag fara badan dagaalka looga jiro dagaalkaas waxaa rab in la tayeeyo waad ogtihiin shabaab cabsi nagu daymaayaan shabaab salsalaax nagu daymaayaan waxaan idin kugu baaqayaa hoon anoo maaragtay itaqaaniin waxaan rabaa in loo galo dagaalka si mug leh oo hufan oo maaragtay aan loo kala harin xoolaha in la geeyo meesha dadka in la geeyo akhyaarta ay tagaan ay ka soo muuqdaan furimaha haddii intaas la sameeyo waxaa la hubaa guusha salkeeda in la gaara waxaa la hubaa in guusha hordhaca la xaqiijina oo salkeeda aan gaari karno waxaan rabaa dagaalka aan la isku hakran dhalinyarada kaliya inaan la yaacin ayagana aan la hodin annaguna aanan maaragtay waxaan kala dhimano qabya aanan guul ka raadin waxaa la dhihi jiray waaga hore ee gobondoonka nafti hore iyo neefki hore hadda waxaan ahay anigu nafti hore haddaan marka barga bariga fiicanta anigu ma joogo haddii habari ayr joogo murashada joogo xawaad la joogo rugtii shabaab lagu shiraa awal abayga fiicanta horta ma joogo meel kasta uu leeyahay waa lagu shiri doonaa horta nimanka reer goobad waxaan leeyahay ma ka midaysanoo ma naga dar allah ama san nimanka cayd in rabta nimanka laga kacina meeshaan oo la aadayn diyaar muuna والله يدين جسيا عدو